ogaada wixii halkaa ka dhaca horta 3 sano reerka Samaroon gaaskooga iyo rakalo badan hawshan bay ku jireen adsaabay joogeen waxbay abaabulayeen abaabul dheer bay ku jireen ninkii loo dhanayay daahir rayaale iyo ma daragtay ninkii kale ee Muuse Biixi labaduba dubay joogan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo bisha December ay tahay 6 anigoo muddo dheer ka aamusnaa arinta leysdhex waday ee beesha Ciise iyo beesha Samaroon waxay qasab igu noqotay inaan imika jawaab cad siiyo madaxweynaha Cabdiraxmaan ee dawladda Somaliland arintiisii baan ka jawaabayaa waxaan la hadli waayay inta oo dhan oo aamusnaa tolka inaan wax u sheego foolxun ma doonin waxaan sugayn hadalka u dambeeya de hadalkii u dambeeyayna maantuu dhacay sababna maxaa looga dhigay sabab waxa looga dhigay ciyaalkii baa shalay dagaalamay ciidamadii meesha joogay ee nabadda ilaalinayay يا عيال كبر كي بانم كو غدودين اي دعين iyo dhul maxaya oo dhulka ay boobeen bay rasaas ku tuureen waa dhimasha dhacday dhaawac baa dhacay deed waxa weeyaan dhimashada iyo dhaawaca horta ubadkayagii inta maartay dhaawacna Allahu boogadayo inta dhimatayna Allahu naxariisto yaa ka aabaadeed waxa ka aabaa odayadii Samaroon siyaasiyiintii Samaroon ee ciyaalkan kuleeliyay halka ku jeediyay iyaga ka aabaa de kolka waxa weey maadaama ayagu ka aabayihiin in la yiraahdo dhib baa dhacday wixii waan joojinay de dhibta Ciise riday Ciise ubad ka dilay anagu nabad baan iska nahay daanskaygi baan iska sugaynay bisha ma adartay 15keega oo habeen horena la yiri waa 14keegi waxa weey anagu taabaan iska sugaynayoo dadkii qurba joogtii iman lahaana qaar tigidhadii soo goostay oo dib ku labaad u celiyay qaar badan kuwii halkan ka tagay oo dhowr goor kale celinay dadkii oo kolba been loo sheegay inta oo been loo sheegay waxa weey horta madaxweynaha dawladda Somaliland iyo dawladdiisa inta la shaqaysay may aqli beeleen mise wax kale ku jira may aqli beeleen mise wax kale ku jira maxaa ka dambeeya oo ku ajburaya inay waxan sameeyaan waxa ku ajburaya ubadkoogii inay laayaan oo ma dartay maanta ceebtaasi ay dhacdo maxay tahay waa arinta aan ka yaabanahay horeyna aanu ogeyn aan la soconay laakiin aan ka hadlayn waka go'aanka waxa keenay waa in la cadeeyo ilaa maanta qarinaynay ilaa wax kasta soo shaabaxo anagoo og inuu soo shaabaxay yaan la sugayno waxan deed loo ogolaan doono bari ma noqon karaan islahayn go'aanka waxa ka dambeeya horta 3 sano reerka Samaroon gaaskooga iyo rakalo badan hawshan bay ku jireen adsaabay joogeen waxbay abaabulayeen abaabul dheer bay ku jireen oo arintanuna dadka halka degan ma badagaan bay yiraahdeen waxba kuma leh dhulka Ciise ma badagaba bay yiraahdeen taa waxa ka daran waxa la xiriiray Emiraadka la xiriiray beesha Samaroon way la xiriirtay dhulka anaga hale cid kale male Ciise ma dago bay yiraahdeen
arrintaasna halkaasay ka socotay dee tii Samaroon iyadoo sidaasa waa kii waqti hore dee ay wax burbureen MOU-dii watay baab burburtay dee waxa dhacay ninkan cusub ee la doortay annagaa ku keenaa la yidhi waa la qaaday waxa la geeyey Emiraadka bil wax ku dhow soo fadhiyey muxuu ka qabanayay halkaa bishaa waxa ku dhow hawshan bay ahayd dhulkaan nimcadaynaynaa boorar baan ka samaynaynaa warshadaan keenaynaa lacagtu waynu guud socon sidaasay ahayd lacagna waa loo soo tuulay wuu ku soo ritay jeebku soo qaatay ragga Samaroon lacag badan bay wateen ciyaalkan iyo odayadan iyo dadkan la waalaya ee qaar dibadda laga keenay waxaan lagu wado waxaasay ahayd dee waxa weeye annagu waxaan u arkaynaa waxaas in Emiraadkan keenaynaa dadkan waa dad ma aragtay la soo aan ognahay in la soo abaabulayo lacag baa lagu soo abaabulayay dhibaataa jirtay dumar baa la isticmaalayay gabdhaha la isticmaalayay wax fool xun baa socday waxa fool xun oo socda haddana anigu kama hadan waxaan sugayay sidaan nii sheegay waqtiga u dambeeya imikii hadda maantadana nila hadlayo ninkii la odhanayay Daahir Rayaale iyo maad aragtay ninkii kale ee Muuse Biixi labaduba Dubay joogaan xafiiskii maamulka Dubay iyay joogaan halkaasay joogaan maad aragtay markaa waxa weeye arrintani waa arrin cad raggaana walaa Daahir Rayaale walaa kan kale waa sheekadii Emiraadka soo wadaan xilliga ciisana dhulka ma degano ma jiradii weeye de kolkaa waxa weeye anigu waxaan la hadlayaa shacabka Samaroon baan la hadlay walaalaha iyaga Samaroonow dhulka rag baa iibsanaya halkaana way marinayaan Samaroonow magacaagaa lagu ciyaarayaa Samaroonow ciise ma kala maartaan wiil iyo abti baad isku tihiin haddaad joogtaan Ethiopia haddaad Djibouti joogtaan haddaad Somaliland joogtaan intaba wiil iyo abti baad isku tihiin waad isku marantihiin cidni kala saari kartana ma jirto de waxa weeye tolkay Samaroon waxaan u sheegay mashaakilkaas waxa wada waa odayadiina siyaasiyiintiina iyo maad aragtay maamulka Somaliland ee marna berri maantaad qabsanaysaa marna intaa ka good cishadaa kale raggaasaa ka dambeeya xilligaa walaalaha iyaga Samaroon waxaan u sheegaynaa inaan dad ilaahay meel naga wada abuuray aan nahay oonan kala maarmayn oonan kala tegayn mashaakilada raggaa ay soo wadaanna han iska ilaalino mid baan iyadana odhanayaa dowladda Somaliland ee meesha ka talisa ciday doona ha adeegato odayaal ha adeegato ciday doona ha adeegato dowladda halkaa ka shaqaysa maanta oo Cabdiraxmaan madaxa ka yahay Cabdiraxmaanow wixii halkaa ka dhaca in adigaa aabba ka ah dhibaatada halkaa ka dhacda adigaa aabba ka ah adigaa leh ciise ma dega meesha adigaa leh ciise wax kuma qabsan karo adigaa maalin u sheegayay oo 100 beenood u sheegay de waxa weeye ciisuuna waa reer jira dad dareen lana weeye walaaltinimadana ogol halkaa wixii ka dhacana adigaa aabba ka ah
adigaa lagaa weydiin soomaalina waxaan u sheegaynaa soomaaliyay adduunka meel kastood ka joogtaan ciise halkaa dhib kuma le xaflad yaroona qabsani yidhi uu dhulkiisii uu ku qabsanayay yaa loo diiday ciidamaa la duldhigay ciidamaa xoog yaa dhulkoogii oo dhan la keenay waxaad moodaa goob dagaal baa dhulkoogii laga dhigay dadka masaakiinta ee waxba haysan ee hubna haysan ee dagaalamayn laakiin waxa weeye soomaaliyay ogaada wixii halkaa ka dhaca waxa weeye waxaa aabba ka ah cabdiraxmaan baa aabba ka ah dowladda halkaa jirta aabba ka ah asalaamu calaykum